magacaygu waa cabdikariin cumar macalin waxaan ahay daadiyaha barnaamijka hilo oo bishii 2 jeer aad kala socotaan idaacadaha kala ah raadiyo jawhar, raadiyo balcad iyo weliba raadiyo wadan ee magaalada beledweyne. sidoo kale waxaad daawadayaasha ku nool geyga Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada Hirshabelle ay nagala socdaan barta Facebook aynu ku leenahay ee hilo waa barnaamij dood wadaag ah oo aan diiradda ku saarno xalinta khilaafaadka, isbedelka cimilada, nabadeynta, fatahaadaha, ka hortagga muqaadaraadka iyo waxyaabo kale oo aan isleenahay bulshada laga maarmaan ay u tahay. hilo oo ah barnaamij bishii 2 jeer ka baxa idaacadaha aan soo sheegnay ayaa waxaa laga dhageystaa ruwaayado xiiso badan oo ay geliyaan laba ka tirsan shabakada nabadeynta Hirshabelle, gaar ahaan Cabduqaadir Cabdullaahi Colaad iyo weliba Ayaan Axmed Cali oo ku kala matalaya Hanad iyo Hibo. ruwaayadaasi ayaa ah mid tusaale dhab ah u noqotay shacab fara badan oo ku taxan barnaamijka hilo. sababta ugu weyn ee barnaamijkan loo abuuray ayaa ah in shacabka Hirshabelle lagu fahamsiiyo dhibaatooyinka khilaafka leeyahay iyo weliba sidii ay markaasi ay u ogaan lahaayeen khataraha isbedelka cimilada caalamka farabacaan ku haya Soomaaliyana ay aad ugu nugushahay. hilo oo 2 sano la soo dhaafay si toos ah shacabka ku nool Hirshabelle ay kala socdeen idaacadaha ku kala yaala magaalooyinka Jowhar, Balcad iyo Beledweyne ayaan sahan aan sameynay ku ogaanay in dhageystayaasha aad u fara badan ay ku qanacsan yihiin iyagoo ruwaayada Hanad iyo Hibo ka dhageystaan tusaalooyin iyo talooyin wax ku ool aad u fara badan. waxaa hubaal ah in beelo walaalaha oo dhowr jeer khilaaf ku dhex maray wacyigelin ay u noqotay ruwaayadaas kadib markii ay dhageysteen ruwaayada hilo iyo guud ahaan barnaamijka intiisa kaleba. hilo muddada uu socday waxa uu sidoo kale digniino badan uu ka bixiyay fatahaadaha soo noqnoqday ee webiga Shabeelle, iyadoo dadweyne aad u fara badan oo ku nool hareeraha webiga jiinkiisa ay digniinahaasi qaateen, kuwaas oo ka shaqay fatahaada webiga Shabeelle si dhibaato aysan ugu soo gaarin. mas'uuliyiin kala duwan iyo aqoon-yahano aan ku martiqaadnay dhowr jeer ayaa codsaday in barnaamijka la sii wado si bulshada ay wax badan uga faa'iideystaan. xaqiiqdii tan iyo markii la abuuray barnaamijka hilo wuxuu noqday barnaamij ummadda Soomaaliyeed ay aad u tixgeliyaan uguna taxan yihiin, gaar ahaan kuwa Hirshabelle. dadweyne aad u fara badan oo ku nool dalka dibaddiisa kuwaasi oo kala socda barnaamijka hilo barta Facebook aynu ku leenahay ayaa u arka barnaamijkan mid qiimo weyn u leh bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Hirshabelle, iyagoo codsaday in bulshada loo sii baahiyo xilliyo kala duwan maadaama bishii hadda 2 jeer uu baxo. waxaan jecelnahay inaan halkan ugu mahadcelino dhammaan dhageystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijka hilo, kuwaasi oo falcelin muuqata ka sameeyay barta bulshada aynu ku leenahay ee hilo. waa barnaamij aan wada hamuun qabno. magacaygu waan Istaxan Maxamed. waxaa dhageystaan barnaamijka hilo sida barakacyaasha, fatahaadinta iyo isbedelka cimilada iyo xalinta khilaafaadka. waxaa jeclaan lahaa in lagu soo daro isdhexgalka bulshada iyo wacyigelinta waxbarashada. magacaygu waa Xasan Ali Maxamed, waxaan ku suganahay degmada Balcad. ma dhageystaa raadiyo Balcad mise kala socotaa barnaamijka hilo? waa dhageystaa walaal xariisana. waxaan ka dhageystaa raadiyo Balcad. maxaa ka mid waxyaabaha ka dhageystaa? waxaan ka dhageystaa barnaamijka fatahaada oo beeraha biyaha macnaha ay fatahaadan ay webiga nagu sameeyay. waxaan ka dhageystaa barnaamijka hilo fatahaadaha cimilada kulley waxyaabo badan oo saas ah. waxaan jeclaan lahay in waxbarashada moogtahay la ta'kiidiyo, xoogga la saaro, lagu soo daro hore u wadaan. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Cabdinaasir Xasan. barnaamijka hilo waa si fiican u dhageystaa bilixta. inuu barnaamijka hilo fasahaadaha oo meelaha barakaca iyo daadadka iyo dadka dhiirigeliyaan waxyaabo badan ka dhageystaa. in la sii wado hor u sii kordho kor u soo caadhiila keep going. waxaa jeclaan lahaa barnaamijka inaa lagu soo daro yani waxyaabaha maandooriyaha maadaama ay dhalinyarada u bateen inay maandooriye isticmaalaan. walaal magacaada marka hore? magacaygu waa Maxamed Axmed Ismaan. waxaa ku noolahay degmada Balcad. waxaa ka mid ah dhageystayaasha barnaamijka hilo. marka ka dhageystaa barnaamijka wallaahi waxaa ka dhageystaa degmada Balcad ka dhageystaa barnaamijka hilo. ma raadiyo amaad kala socotaan mise qaybta Facebook mobilada yani kala socdaa. marka waxaa jeclaan lahaa barnaamijka in la soo badiyo yani barnaamijyo badan la keeno
يعني شو سياسي كدر الله وحسن علي ودقن بلعت وعن هاي دقيستياش راديو بلعت وعن كدقيستا برامجك هلو برامجك هلو وحو هاي برامجك بحاي 3 قيبود حلين خلافاتك فتهادها يسبدلك عملده وحو هاي برامجكاس برامج موضوع aad u fiican oo ahay oo in lagu baraarujiyo dadka oo aad u mudnaay maadaama oo barnaamijkaas barnaamij fiican ahay waxaan jeclaan lahay in la sii kordhiyo oo la sii socodsiiyo maadaama oo waxyaabaha uu ku saabsan yahay waxyaabaha xilligan 2024-2025 ku saabsan oo yahay maadaama fatahaado badan ay jiraan dagaal beeloodyo badan jiraan cimiladanu ay isbedeshay oo jirto ceeryaamo fara badan iyo waxyaabo jiraan dadku in la sii wacyigeliyo aad u fiican tahay waxaan jeclaan lahay barnaamijkaas in hore loo sii wado laguna soo kordhiyo dood cilmiyeedyo dadka khubarada ah oo ku barteen isbedelka cimilada iyo fatahaadaha sida looga hortagi lahay webiga hadoo kale fatahaado fara badan oo sameeyay waxaana sabab u ah in webiga oo caradiisa kor u soo kacday ee aad u buuxsantay marka xiliyada webiga gurina in webiga la qodo si oo ay fatahaad u yaraato. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu saddexan waa Yuusuf Ciimoy Roble oo ku nool degmada Balcad gobolka Shabeelle Dhexe ama Hirshabeelle waxaan aad markaas u dhageystaa warbaahinta Balcad oo markaas degmada kaliya ku taalo isla markaan aan kala socdo barnaamijka Hilo oo bishii la marso galo barnaamijka Hilo waa barnaamij aad markaas u wanaagsan isla markaan waxyaabaha looga baahan yahay degmada oo ka hadla sida markaas fatahaadaha ismeen Hirshabeelle ismayaan oo kale isbedelka cimilada oo kale iyo xalinta khilaafaadka oo kale marka maadaama saas ay tahay ani ahaantii waxaan jeclaan lahaa in marka lagu sii kordhiyo barnaamijka hadlaya maandooriyaha maadaama dhalinta Soomaaliyeed hadda badanaa maandoori isticmaalaan in barnaamij lagu soo daro oo si markaas u kala yaraato macnaha maandooriya dadka isticmaalayaan waxaan kaloo markaas jeclaan lahaa markaas dadka oo barakacayaasha kale hadii lagu soo daro marka aad iyo aad inuu barnaamijka Hilo si socodna jeclahay aad iyo aad oo markaas aad Balcad ka dhigaysano barnaamij mawduuc macnaha markii mawduuc laga dhigo mataqaana oo taxana mataqaana wuxuu noqonaa barnaamij oo ku saabsan in mataqaana wacyigelin oo toos noqon laakiin riwaayadahan loo sameeyo ayadana isku wacyigelin waa riwaayadahan iyo macnaha mawduuc laakiin muhiimada in lagu soo daro waa muhiim oo macnaha waxa waa aad iyo aad waxa waa dhalinta Soomaaliyeed mataqaana badanaa kii soo kordhabo oo si isticmaalaan ogta marka si loo si u kala yaraadaan dhalinyarada mataqaana si u kala yaraadaan maandooriya u kala yaraadaan in markaas lagu soo daro barnaamijkaas wacyigelin oo noqoto aad u jeclahay idaacad Balcad ka dhigaystaa mar walba macnaha marka soo gasho macnaha laba mar bish soo gasho waan ka dhigaystaa radio Balcad kala socda ana goobta shaqo jooga meehana ka dhigaystaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga la yiraahdo abtiyow barnaamijkan laga hirgelinayo degmada Balcad aad iyo aad waa horumar degmada ay gaartay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin hadoo alla yiraahdo radio Balcad si fiican u dhageystaa aad iyo aad si fiican waa ula socdaa waxyaabaha ka mid ah aan ka dhageysto waa waxa waaye cimilada ambe yani xilliga hadda lagu jiro kala roobka iyo fasahaadaha iyo sidaan oo kaleente iyo webiga Shabeelle oo kaleente markay soo fasahaadaan oo kaleente alxamdulillah dadkii yani masaakiinta barakaca waxna ayna iska haysanin abaar fara badan ay jiraan yani dadkiina isku soo wadankiina dhinac kasta colaado ka jiro haddana wadankina shaqo la'aan ay iska jirto marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinahay barnaamijkan aad daadihineysaan horena xalinta khilaafaadka oo yani roobka webiga waxa jeclaan lahay in lagu soo kordhiyo in hawlaha aad iyo aad loo sii kordhiyo macnaha waa ka dhigaystaa ay maxaa kamid ah qaybaha ka dhigaysan sida fatahaada iyo barakacada iyo dagaalada iyo barakacada iyo dagaalada iyo waxaas ka dhigaystaa iyo aniga oo yahay intee kala socotaa ma raadiga ka dhigaystaa mise Facebook raadiga ka dhigaystaa markoo raadiga ka dhigaystaa markoo raadiga ka dhigaysanay haddana Facebook ka dhigaystaa kala socdaa raadiga ka dhigaystaa magaciisa raadiga ka dhigaystaa waxa waaye radio Balcad 87.9 megahertz. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh anigoo ah Dalmar Abdulqaadir Dalmar kamid ah ku degan degmada Balcad ma sha Allah taban waqti kasta waa dhageystaa aan jaanis ahayo waa radio Balcad aad waa barnaamijka Hilo barnaamijka Hilo wuxuu ka helaa laga dhageystaa amal ka hadla jabiyada cilmada iyo xalinta khilaafaadka iyo waxyaabo badan oo ma sha Allah aad ka dhageystaa jirto waxa rabo inuu wacyigelinta ku soo kordhiso
wacyigelinta waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabaha qaar oo ku xisaabsan waxbarashada barnaamijkan la sii wada jecelahay oo intaas sano socdo 50 sano cam ina socota jecelahay magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed abubakar maxamed radio balad aan u dhageysta si fiican barnaamijka aan kala soo waxa kamid ah macnaha barnaamij ay wadaan oo hilow la yiraahdo taasoo macnaha looga faalo inta badan macnaha looga faaloodo daadadka iyo barakacayaasha oo markaas degmada maanta kasoo beeray waxaa kamid ah anigu ka faa'iideysanay macnaha dagaalada sokeeye hababka aan hortagi lahayn iyo ka hortaga macnaha fatahaadaha iyo dadka degmada jooga maanta ee ku soo barakacay qaabkii macnaha loo maareyn lahayd حاجة إعلان إنه لقصو كردي إن لكردي برنامج لكردي ولا سي لو جبارو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي وأستاذ خادر محمود محمد كان متى دقيستا راديو بلعت كان دقيستا برنامج كهيلو والله وحن كدقيستا منطقة بدلك عملها حل خلافاتك يو فتحات والله وحن جعلها ولا آدي أو بقادلنا أنا وعصنا لقصو كرديو وعيقلن لنك وحبرشدا والله برنامج كان برنامج ورد آدي أدو في عن waxaan si jeclaa mar walba in mataqaana la sii hormariyo oo la sii wado in halka sare la sii gaarsiiyo beeriga tacabka ay ku yaal ee bihi gooyeen hay'adaha gargaarkana ay macnaha noo yimaadeen wax noo qabteen arrimaha kala socdaa Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anigu ah Maxamed Cali Maxamed adoweyn barnaamijka Hilow waxa kamid ah barnaamijka fasaadaha iyo cimilada iyo khilaafaadka waxyaabaha maandooriska in macnaha lagu soo kordhiyo oo dalka macnaha dhibaatooyin barnaamijka in hore loo sii wado Assalaamu alaykum anigu magacayga Maxamed Maxmuud Faarax Ilowle oo ku degmada Balcad raadiyo Balcad waa dhageystaa ma sha Allah aad iyo aad waa la socdaa macnaha waxyaabaha ku dhageysana fatahaadaha webiga Shabeellada Dhexe iyo khilaafaadka oo cimilada iyo awd bisna aga dhageysana waxa jalaala in la soo kordhiyo maandooriyaha dhalinyarada xaqiisina la hadlo maandooriyada la soo kordhiyo jalaalaha oo idaacada oo safeen oo la faafiyo idaacada Balcad noo sii weyneeyo in la sii wada si jalaaleen joojis qabdaro ma fiicno tan ay u sii manaafacaadaan maaragtay wuxuuna qayb ka yahay in geedana u jeedid aad ku quruxda badan waxaan ku sugannahay beerta loo soo dalxiis tago ee ku taala degmada Balcad oo uu hirgeliyay maamulka degmada Balcad oo kaashanay qaybaha kala duwan ee ku dhaqan bulshada degmada Balcad waxa halkaas nagu soo dhaweeyay agaasimaha waaxda dalxiiska degmada Balcad Cabdullaahi Cali Maxamed Shuuriye barka waran beertan loo soo dalxiis tago sidee ku hindisteen agaasimaha oo maasan tahay faahfaahin kooban hadii aan ka siiyo beertan aan u jeedid beerta ugu badan oo dalxiisayaasha Soomaaliyeed iyo ama bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka iyo qurbo joogta halka meesha ku soo dhaweyno waaye beerta hadda ugu muhiimsan oo laami u dhow beertan waxa u jeedaa in ay 30 iyo dhowr geed oo cambe aad u qurux badan ay leedahay waxaan aad halkan ugu mahadcelinaynaa abayaasheen oo soo gaarsiiyay geedaha noo talaalay samaanta aan ku harsanoono harkan quruxda badan waa u jeedaan geed aad u qurux badan cambaha dhulka iska soo dhacayo iska cuneedid aan cunno kale u baahnayn in meeshan laga helayo annagana waa u jeedaa waxa waaye inta aan ku kari karno ha ahaato mooski ha ahaadaan geedo yar yar oo inta anaga tabarteen ah in aan talaalnay si caruurteena ay ugu sii faa'iideystaan dhaxalka ee noo keeneen maaragtay wadna anagana maaragtay in aan wax ku tiri karno inta wax ku tiri karno in aan ku tarno waa meel qurux badan waa dabcan meel loo soo dalxiis tago bulshada isugu far badan timaado maalmaha khamiista iyo jimcaha sida aan maqlay saacadee waxaa jiro taas bedelkeeda dad fara badan oo ay ku mashquulsan sidii geedaha oo ay ugu soo saaran lahayn iyagana qodiyoonkooda sidii dadka dhuxusha jaro kale qodobkaas qodob aad u muhiim waaye dadka inta badan hadda anaga ka maamul ahaan gudoomiyaha degmada aad ay ula dagaaltamay in maaragtay dadka in ay geedaha maaragtay jaraan dhuxul iyo waxaas ka sameeyaan aad ula dagaaltamnay maamulka ugu horeeyo gudoomiye Qaasin haddana waxa waaye bulshada Soomaaliyeedna waxaan leenahay walaal geed aad harsanaysid ka qayb qaadanayo isbedelka cimilada wax wanaagsan waaye in geed aadan maaragtay jarin waxa laga baahan yahay geedkaas soo ku bixi lahaa inaad ka shaqeyso geedaha yar yar oo maaragtay dhibaaya inaad ka wareejiso waraabiso si dadka iyo deegaanka ay ugu faa'iideystaan marka waxa waaye wacyigelin baa jirta oo dad dhalinyaro ah oo ka wacyigeliyaan in dhulkii geedaha ku yaalo quruxda badan in la jaro
in aan geed annaga talaalna degmada balcad ahaan geed inaan talaalna maahane geed aan jarna ma jirto insha Allah tusaale waxaan ka imid magaalada muqdisho waxaan u soo dalxiis tagay degmada balcad gaar ahaan beertan quruxsan ma jiraan wax qarash oo la iga rabo mise waan iska soo dalxiisayaa bawtigaan soo qaadanaya magaalada muqdisho ayaan laabanaa waxa anaga ugu doonahay deegaanada kale iyo degmooyinka kale waxa waaye qofka dalxiisaha oo meesha soo aadayo wado barista wax laga ma qaado beeraha oo soo tagay wax laga ma qaado hal shay bis inaad ma aragtay manaafacaadka meesha ka baxay inaad bac ku arursato banaanka la aadalay la diidaa maane inta kale waa free yaa idinka bixiyay marka hadda tusaale motor ayaa beerta dhinac ka saaran waa tigi doonaa qarashaadkan yaa idinka bixiyay qarashaadkan jaabkeena anaga ka dabarnaa waxa ugu dabarnaa waxay tahay meeshan mustaqbal iyo aayatiin la ka rajeynona geedahan hadda u jeedid maanta dalxiisayaal imaanayaan hadda dhaano biyana aan waraabinin motorkan aad daarin geedii waa qalalayaan dad noo imaanaya ma jiraan saas la aweed hadda inta shaqada ay ka bilaabaneedo annaga shaqadaas iyo waxaas wadna qarash la gelinooyaa markii ay cagaha is dhigato hoosh dhan ay dhamaato markaas kadib waa qorshe laga dejinaa si dalxiisayaasha imaanayaan balcad dabcan beertan kale kuma taalo beeraha kale dabcan sababaha dadka aysan u tagaynin oo kale free u tahay waxa lagu sheegay inay dhinaca ammaanka tahay si fiican marka beertan waa booliiskii waa joogaan meeshan ciidankii ilaamiye ammaanka oo dhan magaalada meesha kaliya maanta la isdhigi karo oo waxa waaye dalxiisayaasha aad u fara badan imaadaan amnigooda 100% looga taxadiro meelahan oo kale taa waaye iyo beeraha ka agdhow 15 kilomitir magaalada isku war waa amni khaasatan beerta waxa waaye waxay ugu doontaa beeraha kale waxa waaye cambaheeda iyo macadeeda dhan waa leedahay marka xilli walba daryeelasha marka hadda xilligan lagu jiro xilli roobaadka ma aha haddana xilli kuleelaha waaye haddana geedihiina waxa aragtay aad ay cambeeyeen u leeyihiin taas waxa suurtagal oo soo biyaan wabiga ka imaaday oo nimcada Ilaahay Rabbina siiyay tahay in ma aragtay biyo fartaas xagaas laga soo jeexo motorka loo daaro biyo la soo bixiyo shidaal maalinta qarashan caadina meeshan ku bixina aradan halkee laga keenaa aradan waxa laga keenaa magaalada waxa loogu talagalay aradan meeshan in waxa shaqadeeda sida ku sheegay in laga bilaabo shaqadeeda ma aragtay la gudagalo laga sameeyo serviceyada aan ku sheegay si ma aragtay dadkii soo dalxiistay macnaha aan ka kaafino waxyaabo ay u baahan yihiin hadii aan hool service walba hadii u baahan yihiin hadii hoolal shiraac hadii u baahan yihiin meel carruurta ay ku dhigay iidaha soo socda waxaan rajaynaynaa carruurta magaalada Muqdisho jaam hoteelada ugu noqdeen in nafiskan ay dareemaan meeshan ay imaadaan insha Allah waa aragtaa dhirtan dadaal badan waxaan ku wadnaa si ay u soo laaban lahayd waa biyaha hadda u jeedid farta soo baxday biyaha intay toos soo imaanayaan dhurtan waa qaleel ay noqotay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah dib in ay soo laabato waa shaqo adag aan gelinay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inay dib u soo laabato si horumarka iyo nasiinada iyo neecawda xagan dadka ay soo dabaalaan ay soo nastaan insha Allah howlaha ka socda hadda aragtaa geedaha waa jarmayaan sana dada aad u qalalayeen ka aan siisay saacada degmadan balcad gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka baxa hal raadi ayaa ku yaal waxaana ka baxa barnaamij loogu magac daray inkastoo raadiga uu barnaamijyo fara badan diiyo haddana waxaa ka baxo barnaamij la yiraahdo hilow adiga ma ka mid tahay dadka ku taxan ee barnaamijkaas dhageysta waa ma santa ayaa simay barnaamijka hilow su'aal muhiim ah ay weydiisay oo ah hilow inta aan ka warqabo waxa u maleynaa bishii 2 mar la soo daayaa waana daawada waana dhageystaa yacni bulshada balcadna aad ugu taxan yihiin wuxuu ka hadlaa xaalufinta dhirka fatahaadaha waxyaabo muhiim ah oo macnaha bulshada ka hortaga xaalufinta dhirka ayuu ma aragtay barnaamijkaas soo daayaa bulshada balcadna aad ay u diirsadeen bishii 2 mar la soo daayaa run ahaantii waa wax loo baahan yahay deegaankan iyo dadkaanba in la dhiirigeliyo oo ma aragtay wax loo sheego ma aragtay laga hadlo waxyaabaha khatarada ku ah xaalufinta dhirka haday ahaato fatahaadii wabiga haday ahaadaan aad ay u diirsadeen bulshada balcad waxaan leenahay tiimka ku shaqo leh oo arrimahaas gacanta ku haayo waa maasantiin bulshada balcad warbixinta ay soo gudbinaysaa ma jiraan waxyaabaha uu ka hadlayo barnaamijka wuxuu ka hadlayaa isbeddelka cimilada arrimaha xalinta khilaafaadka fatahaadaha nabadda ku soo rogmaday xalinta nabadda marka ma jiraan waxyaabo
ka mid ah ee adiga kusoo jiitay oo riwaayadda hilow aad ku dhex dhegaysatay? aad iyo aad waxyaabo badan aa ka mid ah. horta Soomaali waxay dhahdaan nabad aan naas la nuuga leh. deegaanadan hadda u jeedid iyo beertan aan ku sugannahay meesha ugu horeedo maaragtay amnigeeda 100% oo yahay dadkii dalxiisayaasha imaanayaan madaxda ugu sarreeyay imaanayaan taas waxay daliil u tahay nabadda wax weyn inay tahay nabadda shay la heli karin inay tahay nabadda inay qaali tahay. kooxaha nabadiida waa beeraha iyo maaragtay Basra iyo eriyada Balcad meelaha ugu quruxda badan oo ku joogaan weyn isku dayaan in maaragtay nabad ay qalqalgeliyaan dadka damaashaadka iyo farxadda ay qaadanayaan ma ku faraxsano macnaha. laakiin alxamdulillah ciidamada booliiska ha ahaadaan militariga ciidamada qalabka sida dhammaan ee degmada Balcad ku sugan ayaa ka hortago mar walba u taagan inay deegaankan nabad inay ka dhigaan. arinta ugu muhiimsan oo soo jeeditana taas waa aad ma santahay waa kaaga mahadcelinayna. mid labaad dadkan hadda qaarkood meeshan taagan ee fadhiya baabuurkan wada socota qaarkood waxay isugu jiraan filay qurba joog qurba joog qaar dalka dibadiisa yani waxa waaye waxa u aaday nafis inay u doontaan oo maarad ka soo waayay beerahan ay geedahan cambaha hoostooda waqti u qaadanayaan. dad kale oo iskugu jira deegaankan oo maaragtay geedahan hoostooda imaadeen hadda waa aragtaa laamiyada iyo geedo waaweyn kuma yaalo marka meesha maadaama xilli kululaad ay tahay dadkan meeshan ay ku harsanayaan. walaal ugu dambeyntii barnaamijkaas aad dhageysatay hilow ma jiraan wax fikir aad ku soo biirinayso oo isleedahay barnaamijkan waxa uu ka maqan yahay fikir aad ku soo biirinayo ma laha. waxaan dhihi lahaa arintaas si laba jibaara waxaan jeclahay ka codsanaynaa maamulka sare bisha 2 mar la isku dayaa in hal maalin kale uu yaraan lagu daro. agaasimaha waaxda dalxiiska degmada Balcad Cabdullaahi Cali Maxamed Shuuriye. Cabdullaahi waa maasantahay sidaad noo soo dhaweysay waan kaaga mahadcelinaynaa. waa maasantahay. bismillaah magacaygu waa Nimco Ibraahim Ismaan waxaa deganahay degmada Balcad. ay ma kamid tahay dhegeystayaasha barnaamijka hilow? haa zaid. maxaad ka dhegeysataa halkeese ka dhegeysataa maxaase kaaga soo baxay? waxaa ka faa'iiday waxyaabo fara badan waxaa ka dhegeystaa raadiyo Balcad. maxaa ka mid ah marka waxaa ka faa'iiday xalinta khilaafaadka isbedelka cimilada iyo waxyaabo fara badan. maxaa isleedahay lagu soo kordhiyay? waxaa leeyahay lagu soo kordhiyo waxaa jira dagaalo sokeeye iyo waxyaabo fara badan ka waxaa leeyahay anagu soo dar. أولا إله ما أسكاله سبحانه وتعالى ما أنت وحى شرفين إيه أنا وآه قدومي كحجين كأرمها بلشة ذكمة Balcad aan ka soo qayb galnay barnaamijkan la yiraahdo hilow oo labadii sano oo ka bixi jiray idaacadda raadiyo Balcad oo maanta waxaad moodaa Balcad iskaraaftuulooyinkooda aad loogu diirsaday barnaamijka sida wacyigelinta iyo khatarta ka imaan karto waxyaabaha fatahaadda oo maanta aan u fadhina in loo balaariyo oo maanta idaacaddii la gaarsiiyo Hirshabeelle maadaama baahi weyn ay aqabtirtay wacyigelinta iyo mataqaanaa iyo isku xirka bulshada. waan ugu mahadcelinaynaa agaasimaha raadiyo Balcad Cabdixakiin Xuseen Islaaw oo barnaamijkaas aad u daadihinayay 2 sano baahi weyn ka jirtay in mataqaanaa bulshada isku xirkeeda waxaad moodaa in reer Balcad ka degmo ahaan ka tuulo ahaan inay gaartay wacyigelintaas. waan ugu mahadcelinaynaa maanta waxaana la jooga agaasimihii raadiyo Hirshabeelle idaacadda Hirshabeelle TV Hirshabeelle waa ugu mahadcelinaynaa si sharafta leh quruxda badan leh oo maanta aan soo qayb galnay. waxaan codsanaynaa in la balaariyo oo aan la gaarsiiyo deegaamada ay ka kooban tahay Hirshabeelle in barnaamijkan hilow oo wada gaaro waayo barnaamijkaas ka maamul ahaan ka bulsho ahaan wax badan aan ka fahanay oo isku xirka bulshada waayo waxaa ka baxo sida dib u heshiisiinta kale waxaa ka baxo sida wacyigelinta khatarta iyo mataqaanaa fatahaadda sababta uu noqon karo. marka insha Allah taala waan ku mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ما شاء الله مقعي وبشار محمود نور قدوميها دليرة دقمة Balcad برنامج كان دود وذاقيسي ugu horeey waan ka qayb qaatay
si fiican baan mataqaanaa tusaalooyin badan ugu qaatay maalintii aan barnaamijkan ka qayb qaadanayay iyo up to now waxaa u dhexeeya farqi weyn oo bulshadii maanta waxay ka gaartay heer aad u wanaagsan oo wacyigelin badan ay ka heshay hadday tahay xagga cimilada hadday tahay dib u heshiisiinta hadday tahay maaragtay fahamka mataqaanaa la socodka idaacadda wax badan ayaa noogu soo siyaaday marka waxaan aaminsanahay meeshaa shalay aan warka laga soo bilaabay iyo heerka soo maray iyo maanta aad iyo aad wax ugu kala weyn bay joogtaa waxaana rajaynaynaa meesha hadda bulshada ay maanta u joogto meel ka badan inuu gaari doono noola gaarsiiyana waan codsigaasna waan ku darsanaynaa bulshadu waxay in badan mataqaanaa xoogga saartay dhagaysiga waa dhagaysataa wixii la dhagaysana ku dhaqankoodu way yimaadaan marka anigu ugu mahad celinayo agaasime alos oo barnaamijkan markii horeba isagana soo gaarsiiyey aan tababar ku qaadanay dood wadaag ka qaadanay tusaalooyin badan nagala siiyey ula noqonay bulshadeennii ay bulshadii ka faa'iiday inay dhagaysato iyo agaasime cabdixakiin raadiyo balcad isagana oo in badan waqti ku bixiyey inaysan idaacadaasu maalinna ay saaraynin bulshada si toos dhagahooda ugu dhacdo ay dadka ku talagalaan doo beer joogo doo xoolo ilaashanayo doo gaari wado oo u shidan yahay wixiisa oo mar walbaba mataqaanaa xaaladiisii ay online tahay raadiyaha aadaan ugu mahad celinaynaa marka waxaa kaloo leenahay oo codsi oon ku dhex darsanayna waxay tahay bulshada horta qaybeeda waa ballaaran yihiin waxaa jirto xagga cimiladoo kale fatahaad keligeed ma aha waxaa jirto cimiladu ibni aadanka waxyaabo fariisi ku samaynayo iyo waxa iska falaag ahoo xag rabaani iska socda sida fatahaadda biyo iska imaanayo kale abaarahoo kale waxa cimilada dhib ay ka mid yihiin in lagu soo daro qorshaha sidii bulshada ugu sii gaashaamo lahayd oo kale inay idaacadda loo soo marsiiyo dhinaca kale xagga ganacsatada waxay keenaan baco waxay keenaan alaabo balastig ah deegaanka iyada naftikeeda dhibaato u keenayso saasoo kale maadaama aad mataqaanaa dadka ay idaacadda ku tixan yihiin in noogula soo kordhiyo waa jeclaan waxyaabaha balastikada ay ganacsada keenayso haddii laga wareegi kara in dhinac kale u wareegaan si ay bulshadii dhibaatada ay u geysanayso bacda xoolihii ka cunayaan oo maaragtay xoolihii caloosha ka qabanayso dhibaato badan ku hayso daaqi uusan soo baxayn meeshay bacda ku bido waxaasoo dhan maasha allah taas waa inoo codsi laakiin aad iyo aad waxaan ugu maacinaynaa raadiyo balcad iyo barnaamijkan faa'iidada aan ka gaarnay wax la soo koobi kara ma ahan meesha imaal ka sarraysa in noola gaarsiiyaan aad u rajaynaynaa insha allah ilaa baa maad iskale anigoo ah xasan mahdi macluub mbote ahne isku dubaha wasaaradda isbeddelka cimilada waxaan ka mahad celinayaa alxamdulilah warbixinta ka baxdo raadiyo balcad waxyaalo badanaa ka faa'iidnay ka wasaarad ahaan haddaan nahay anigoo ah wakiilka degmada balcad u jooga wasaaradda waxaan ka faa'iidnay warbixinada ka baxo iyo wacyigelinta dadka inay aad u anfacday bishii 2 maraa dhagaysaynay haddana waxaa jecelnahay hadduu ilaahay karaala noqdo ka wasaarad ahaan anuu u jooga degmada balcad ee mas-uuliyiinta ka mid ee degmada balcad isku dubayaalka waxaan jeclaan lahaa inay sii badiyaan ee sii saa'idiyaan ilaan isqaqabsi badan waxaa jira dagaal beeleedyo fatahaado badan isbedelo badan maadaama iyagana isku dayeen inay sameeyaan waxyaalahaas oo ka baxa adeega baab ee u soo gudbisay raadiyo balcad waxaan rabnaa inay sii badiyaan hadduu ilaahay karaala noqdo ka wasaarad ahaanne waan taageeraynaa waana aadaan u taawacsannahay hadduu ilaahay karaala noqdo inay adeegyadaas sameeyaan maadaama adiga aad ka mid tahay mas-uuliyiintii wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada barnaamijkan sidaad sheegtay 2 jeer aad ka dhegaysataan ka shakhsi ahaan shacabka reer balcadna ay kula wadaagaan maxaa ka mid waxyaabaha la taaban karo aad isleedahay barnaamijkaas waa laga faa'iiday dadkan oo dhan waxaa laga faa'iiday horta dadka ma ilbaxsana ninna waa ilbaxsan ninna ma ilbaxsana waxaa laga faa'iiday dagaalada sukeeye fatahaadahoo soo naqnaqdo xaalufinta dhirta ilaahay hadduu ku roon yahay waxyaalo badan oo isqaqabsi badanaa ka jiro waddankan waa ogtahin dagaalo sukeeyaa ka jiro xalinta khilaafaadka oo kale ka dhagaysanaa waxyaalahaas aaday u anfaceen bulshada aadana kaga mahad celihiina ka wasaarad ahaan
maxaad isleedahay marka barnaamijkan waa ka maqan in lagu soo daro fikirkaaga wallaahi waxyaalo badanaa ka maqan hadda wixii badan sida badan waa dhegaysanay inta kalena inay noo dhammaystiraan sida bacahoo kale ilaa dukuraan waxyaalo badan oo xoolaha amba deegaanka wax u dhimaayo amba wasaqyada iska bataan meelna nadaafadee leedaha meelna nadaafad ma laha waxaan rabnaa waxyaalahaas in noo zaa'idiyaan hadduu ilaahay karaal noqdo ee barnaamij ku soo daraan sida bulshada loo sii baro oo waxyaalaha ay u sii socdaan hadduu ilaahay karaal noqdo hadda way faa'iideen ka wasaarad ahaan maxaa shacabku uga bataan reer balcad wallaahi shacabka waxaan rabaa naftirkooda inay dhegaystaan wixina ay badiyaan hadduu ilaahay karaal noqdo dhegaysiga iyo shaqooyinka la qabahayo amba wacyigelinta inay qofta ku taxnaato ilaan waxyaalo badan laga faa'iidaa meesha wasaaradda deegaankana aaday u taageersan tahay barnaamijkan wacyigelinta ah waxaan rabnaa inay sii zaa'idiyaan anakana ilaahay dukuraa 5 mar camal waa qabanay haddana inaan noo dhammaystiraan aan rabnaa wixii dhiman السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء ودكتور حاوة وحنكون على دقمة بلعت وأنا كله وهاي برنامجك وهذا البرنامج كان ما يستاهلوا يتبعها عن هذه بلعت بش لرجال في عن وقت يستاه كيف يستاهل runtii ani markaan degmada joogo idaacadda kala socdaa bad markaa degmada ka maqanaayna facebooka ka dhageystaa ay hadda dhageystay barnaamijyada ka baxa hello radio balcad uu sii daayo maxaa ka mid ah waxyaabaha aad isleedahay aad ay ku soo jiitay oo degaha bulshada u weyn runtii hadda waxa aad ii soo jiitay ee aan la dhacay arrimaha oo tusaale dadka qabiilada isku dilaayo dadka beeraha iyo dhulalka iyo waxyaalahaas ka dhaxeeyo in barnaamijkii wacyigelin ku saabsan loo marinayo in waxaas ay totally baqalad yihiin ay maxaa ugu dambeyntii isleedahay oo aad fikir ku soo kordhinayso tirada barnaamijkan oo ka maqan yahay soo tar maadaama aad ku mid tahay dhegeystayaasha ku taxan barnaamijka ilowga ee radio balcad ka baxay waa mahadsan tahay barnaamijka runtii hadda waa uu kooban yahay haddii climate change arrimihii oo isbedelka cimilada arrimihii fatahaadda arrimihii dhulalka la isku haysto lagu soo koobay runtii barnaamijku waa u dhan yahay isleeyahay degmada balcadna aadaa looga baahnaa wayna ku mahadsan yihiin dadka barnaamijkan ku howlan runtii howl adag ay haayaan teeda kale barnaamijka waxaa jeclaan lahaa in lagu soo kordhiyo daryeelka caruurta in qoysaska lagala hadlo tusaale waxaa jira dad haayaan caruur ay iyaga dhalin ama ninkii anaakal kusoo furay ama hooyadii aabihii dhinteen in daryeelka caruurta awaarneysyo ku saabsan in loo mariyo bulshada barnaamijka sasaa jeclaa lahaa intaasaana ka dhimana isleeyahay waana mahadsantihiin magacayga maxamed uu qargaawne oo ku nool degmada balcad ma ka mid tahay dhegeystayaasha barnaamijka ilow ka baxa radio balcad haa waa ka mid ahay waxaan ka dhegeystaa waxyaabo badan oo ka mid yihiin fatahaadaha iyo bacda wasaqyaasha oo xoolaha cunaan iyo waxyaabo badanaa ka mid ah marka waxaa isleeyahay in lagu soo daro maandooriyaha xashiishka iyo daraamidoolka oo dadka isticmaalaan iyadana waa isleeyahay in lagu sii daro ku bilaabo magacayga cali cumar maxamed nabadwaan cali barre waxaan ahay qof wax badan soo joogay degmada balcad ku dhashay ilaa hadda waqtigiisa inta badan ku qaatay degmada balcad waxaa nolosheena ku soo korortay sanadahan dambe barnaamijkan hilow oo ah barnaamij ay wax badan ka faa'iideysteen bulshada ku nool degmada balcad xaafadaheeda kala duwan beelaha tuulooyinka kaasoo ay wax badan kaga faa'iideen colaadaha wax badan ay kaga faa'iideen barnaamijka wasaqaynta hawada bacahii iyo mataqaanaa waxyaabihii xoolaha dhibaayay ama deegaanka dhibaayay waxyaabihii kaleento oo hadda masiibooyinka oo degmada balcad ay aad ugu soo noqdeen fatahaadihii webiga shabeelle oo intuu balcad ka baxay gobolka shabeellada hoose gudaha u galay oo labada wado midda balcad iyo gobolada dhexe isku xirto midda afgooye iyo gobolada koonfur galbeed isku xirto ay wada xiran yihiin ayna xireen biyihii webiga oo barnaamijkaasi wax weyn kaga qayb qaatay
waxaa kale oo barnaamijkaas degmada balcad ay aad iyo aad u faa'iidaysatay ama waxyaabihii uu taray oo ka mid ah agaasime caalos waxaa ka mid ah adiga ma ka mid tahay dhegeystayaasha barnaamijkii low aniga waa ka mid ahay weliba dadka waxaan ahayd bulshada ku baraarujiyey inay barnaamijkaas ka faa'iidaystaan waxaan kale toon ahaan dadkii tababarka loo soo siiyey ee xalinta khilaafaadka degmada ama xataa guddigii xalinta khilaafaadka ee degmada dadka xubnihii koobnaa ee ku jira ayaan ka mid ahaa okay haddaad ka mid tahay dhegeystayaasha barnaamijka hilow maxaa ka mid ah waxyaabihii aad ka dhegeysatay kusoo jiitay waxaa ka mid ahaa oo isoo jiitay sheekooyinka gaarka ah oo midda guud ee bulshada qusayso iyo midda gaarka ah oo qoyska qusayso intaba wax badanaan ka faa'iidnay waxaan kaloo ka faa'iidnay barnaamijkan iska hor imaadka oo beeraleyda iyo xoololeyda isku dhacaas oo degmada balcad ay si gaar ah u qabto kaasoo hadda maanta aan joogo saacaddan ama daqiiqadahan aan rabo inaan ku baxno qof la dilay oo beeraley ah ay dileen xoololey barnaamijkan radio balcad waxaan leenahay waa ku mahadsan yahay sida runta uu u sheego oo waxba qarinin kow sida uu kaga qayb qaato daminta iyo colaadaha taagan kaasoo bulshada balcad ay ku wada xiran yihiin degmadan waa maasantahay barnaamijka halkee kala socotaa ma raadiyaad ka dhegaysataa mise aaladda facebook aad kala socotaa barnaamijka live ku yahay facebook badanaa ma ka dhegaysta waxaan si toos ugu dhegaystaa radio balcad oo si toos aan kaga dhegaysto xataa waxaa kaloo aad ku mahadsan tihiin in xilligayga oo galabtii 11 saac oo BBC laga soo deey jiray in barnaamijkii lagu bedelay nala soo deeyo taasna aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa ma jiraan marka waxyaaba ka isleedahay maadaama barnaamijka 2 sano aad degeysanaysay waxyaaba aad isleedahay barnaamijkan oo ka maqan yahay lagu soo kordhiyo barnaamijkan wax ka maqan ma jiro oo gaar hadda aniga aan sheegayo laakiin waxa Soomaaliya waxay tiraahdaa hilmaan hadalku ma jiro barnaamijkan waa soo wada koobiyaa wixii ka maqan wax weyn ma ahan oo haddii oo colaadihii laga hadlay haddii fatahaadii laga hadlay haddii degaankii laga hadlay haddii bulshada dhexdeeda waxyaabihii shakhsi ahaan ama qoys ahaan u taabahay laga wada hadlay wax dhiman oo gaar ma jiraan laakiin waxaa dhiman in barnaamijka wixii dhiman ayagaa soo bixi doono haddii aad sii wadaan oo aan la joojinin baahida bulshada ay u qabto annagana markaas kadib bacdamaa aan nahay dhegaystayaal inaan bulshada wixii fiican u sii gudbino ama wixii aan bulshada ka soo helno bacdamaa bulshada aan hormuudkoodii nahay inaan si toos ah idinku matradio bacd ula soo xiriirno oo aan si toos ah oo live aan bulshada saan aan u soo horjoogsano waana ku mahadsantihiin aan idin leenahay anigoo Nuur Xuseen Shoote degan degmada balcad barnaamijka maanta u fadhino oo u soo galnay meeshaan horta waxaa ka mahad celihaynaa mahad ilaahay iska leh alhamdulillah shukri barnaamijkan waa barnaamijka maqla jiray aan raadiyaha ka dhageystay aan ka fiirshay hadii la yiraahdo qaybaha facebooka wax badan oo hadii la faa'iido ayuu leeyahay faa'iidaha soo isku dagaalanka qoyska dagaalanka sokeeyo fadahaadka iyo faraha badan oo dhibaatada waxa ilaahay ma hadda iska leh war hore loo dhameeyo sideeda war ma ogtahay inaad saarnaa wax ka imaahaya ma jiro waxa barnaamijka wuxuu mudan yahay amba qiimihiisa yahay ama sharaftiisa yahay waa dareemi karnaa bulshada sidii ay maanta hadii la yiraahdo junti badan iyo wacdi badan iyo dhaqa wax badan ugu bixisheen walaalaheen ilaahay ajir xasanaad badan Allah ka siiyo waa ku mahadsan yihiin radio balcad in badan aan ka dhageysanay ilaahay ma hadda iska leh facebook waa ka aragnaa wax walba waa ka baxaynaa waxaan rabnaa oo dadaalkii oo hadda la hayay in ka badan lama jubaar in lagu daro waxaan maanta aan cadeeynaa amba aan ka hadlaynaa muddadii 2 sano ay soo socotay radio balcad inuu soo tabinayay barnaamijka hilow uu daadihiyo ka ahaa gaalos ahna IBN-ta Hirshabeelle anagana aan goobjoog ka nahay anigoo ah ugaas maxamed wali ugaas xuseen kana tirsan IBN-ta Hirshabeelle qaasatan degmada balcad iyo Dr. Sumayo Ibrahim
waxaan qiraynaa oona cadeynaynaa inaan ka faa'iidnay waxyaabo badan ay ka mid yihiin dhanka isbeddelka cimilada oo degmada Balcad dhuxul iyo laga jari jiray iyo geedaha roobkana uu ku yaraa maantana waxaan aad iyo aad aan ugu hambalyahaynaa in dhirtii jaritaankeedii ay ummadda iyo wacyigelintii ay anfacday ilaa tuulooyinka ilaa 35 kilomitir oo idaacadda ay baahinaysay oo warkeedana uu gaarayay waxaan kaloo ka faa'iidnay amba ay ka faa'iideen shacabka degmada Balcad barnaamijka dib u heshiisiinta iyo ka hortagga colaadaha iyo dhibaatooyinka degmada Balcad ka dhaco qaasatan beeraleyda iyo xoolaaleyda ayagana si weyn oo aad iyo aad ayay wax u fahmeen una garteen ayagoo dhibaatooyinka Balcad ka yimaadeen xoolaaley iyo beeraley ay kow ka tahay teeda kale waxaa soo raacdo dhibaatooyinka ka yimaado qoyska ama familka xataa guriga isla joogo sida ninka iyo naagtiisa iyagana xalinteeda iyo khilaafaadkeeda anagoo IBM-ta ka tirsan oo tababarkii iyo dadaalkii ay nagu bixisay hay'adda Bargof waxaan anagana aan ku sii celinay degmada Balcad iyo nawaaxigeeda tuulooyinka 81 tuulo ay ka kooban tahay waxay dadka ka faa'iideen maanta ay dareemi karaan meelihii ay dhashay IBM-ta degmada Balcad ama Hirshabeelle taasoo ah dadkii iyo beeraleydii iyo xoolaaleydii isqabqabsigoodii inuu yaraaday isku lici familka qoyskii degmada ka imaanaya ayadana ay si maanta oo nabad ah oo walaalnimo ah ay isku fahmayaan ayadoo ay saacideen tababaradii iyo dadaalkii ay hay'adda Bargof ay ku bixisay IBM-ta Hirshabeelle qaasatan degmada Balcad aadaan ugu hambalyahaynaa tababarkaas anagoo weli aan ka dhergin macaanteeda aan jecelnahay in dib oo lagu sii balaariyo loo sii qabto maadaama tuulooyinkeena qaar ka mid ah hadda ay ka xoroobeen dhibaatooyinkii iyo colaadihii ka jiray qaasatan qoladii oo qawaariidta hadda ay ka xoroobeen qaarkood aan rabno in ayagana la gaarsiiyo waxaan kaloo u mahadcelinaynaa agaasimaha raadiyo Balcad iyo garbihiisa wariyaasha oo degmada Balcad miidiyaha oo si weyn oo aad iyo aad juhdi u geliyeen in barnaamijka Hilow oo saacado walba iyo xilli walba oo aad u baahan tahay amba oo ay u sameeyeen jadwal looga dhageysan karo barnaamijyada ka baxo deegaanka idaacadda ay gaarayso aad iyo aad aan ugu hambalyahaynaa waxaan kaloo aad iyo aad aan u saacideynaa amba aan u fahmay aan aad inaan nolol soo celiyo aan jecelnahay كلمة أو عملة لانك عملة أو آدي آد وضنك أو هذا نوع عصبتها هاي بباتوين كذا أنا جانا شباب لحدان لهاي وحاد ياد وعوينا لانك فتحات وبيدا روبيالي هذا أو سنة هذا عن كل جرنا لبضكم لغتني أفرط أو روب كآد ياد ويلي هاي وضنك marka dhibaatooyinkaas oo ka hortaga cimilada intii yaro hadda aan soo qaadanay iyo tababarkeedii degmadu uu ku yaryahay qaasatan IBM-ta Bargof iyo intii ka qayb qaadatay waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad anagoo idinka mahad celinayno in haddana la sii ballaariyo oo isbeddelka cimilada aad looga tabanayo in ayadana lagu soo celiyo waxaan anaga hadda si fiican u baranay oo aan u taakuleehaynaa aan هورن أنا وهن لقل مدة دبوشيسينتا تي أو حين نو ساعدي حبكة أو واحد سكوت بنكر أو عصرها جروبية وتصعب عن سمايسنين هذا ميدا سينا برتاي أي بي أنت أيضا وحول من نوترتاي أنا لو مركين هرب عن هن جود دبوشيسين لقل تاسو هذا أمهات علينا وحن كلو جعلنا هاي أو عن عطسيين وقبل وياهي دمد البلعات إن أي بي أنت أيضا كمغنانين ay dadaalkeedii ay ku wado ay ku soo celiso horan oo gudoomiyaha arrimaha bulshada uga codsada iyo maamulkaba taasaan taageeraynaa isbeddelka cimilada aad oo noo saameeya inaad garab nagu siisaan iyo wacyigelinteeda taasaan iga codsanaa wabillahi tawfiiq magacayga waa Cabaash Sheekh Ibraahim degana degmada Balcad دكتور ولا سودو كمية دقيقتاش كنت حن برنامج كيلو وما تسنتهاي آدي آد وقتحانهاي labadaba waa kala socdaa idaacadana waan ka dhageystaa facebookna waan kala socdaa ay maxaa kamid ah waxyaabaha islaada waa ka faa'iiday barnaamijka ka dhageysanaysa waxaan ka mid ah dadka mararka qaar dad wadaaga ka qayb gala oo arrimaha cadaaladda si fiican uga hadla runtii waxaan isleeyahay bulshada kaalin aad iyo aad muhiimsan ay idaacadda maxaa la dhahay u haysaa
oo waxyaabo badan oo bulshada asal ka qarsoonaa ayaa u iftiimisay maadaama macallin aan ahay waxaan codsanayaa in lagu soo daro barnaamijka aqoonta ama maxaa la dhahayaa waxbarasho ka hadlayo in isbuucii mar oo kale la soo geliyo haddii suuragal tahay ama bishiiba mar waxaan kala jeedaa tusaale ahaan degmada balcad iskuulaad fara badanaa ku yaalaan macallimiin badanna way joogaan dad khubaro ahoo jaamacada macallimiin ka aha jiraan marka bishiiba mar in lagu soo daro barnaamijka waxbarashada barnaamij la dhahayo oo aad u xiiso badan oo waxbarashada faa'iidooyinka ay leedahay oo aan ognahay in bishiiba mar barnaamijkaas la qabto waxaan isleeyahay barnaamijkaas kaliya ka maqan inta kale way u dhameystiran yihiin hadafkeena iyo bulshooyo shabaab